haddii aad rabto inaad arday grade u samayso adigoo adeegsanaya MS Excel waxaa muhiim ah marka hore inaad ogaato grade-ka sida caadiga ah in lagu xisaabiyo average-ka sidaa darteed waxaa marka hore muhiim ah inaad ardayda average u samayso kadib waxaad tagaysaa cell-ka aad rabto inaad grade-ka ku soo muujiso kadibna waxaad qoraysaa calaamadda equal kadibna waxaad qoraysaa if markaad qorto bracket ayaad furaysaa waadna xiraysaa kadib bracketka dhexdiisa adigoo dhex jooga waxaad dooranaysaa column-ka uu average-ka kugu jiro kadibna waxaad qoraysaa calaamadda greater than kadibna waxaad qoraysaa grade-ka ugu weyn ugu yaraan average-kiisa inta uu noqonayo oo laga jaray 1 senti tusaale ahaan grade-ka ugu weyn inaan sameeyo aan rabo waa A+ average-ka ugu yar inaan siiyo aan rabo waa 95% sidaa darteeda waxaan qorayaa 94.9 ayaan qorayaa kadibna waxaad qoraysaa comma markaad qorto waxaad furaysaa double quotes kadibna waxaad qoraysaa grade-ka oo waxaan leeyahay A+ kadibna double quotes-ka ayaad xiraysaa kadibna waxaad leedahay comma qoraalka aan soo qornay haddii aad ku wareertay waxa loola jeedo waxay la mid tahay adigoo dhahaya haddii average-ka ardayga uu ka weyn yahay 94.9 ardaygani grade-kiisa wuxuu noqonayaa A+ sidaas waxaan ku sameynay grade-ka ugu weyn kadibna waxaan u gudbaynaa inaan sameyno grade-ka ugu weyn midka ku xiga oo isla wadadii hadda oo kale ayaad maraysaa halkaan aan comma dhahnay ayaad ka sii wadaysaa oo sidii oo kale waxaad qoraysaa if kadibna bracket ayaad furaysaa waadna xiraysaa kadibna bracketka ayaad dhex tagaysaa adigoo bracketka dhex jooga ayaad average-ka dooranaysaa kadibna waxaad qoraysaa calaamadda greater than kadibna waxaad qoraysaa grade-ka labaad average-kiisa tirada ugu yar uu noqonayo oo laga jaray 1 senti kadibna comma ayaad leedahay kadibna sidoo kale double quotes ayaad furaysaa waxaadna ku qoraysaa grade-ka labaad oo waxaan leeyahay A kadibna comma ayaad leedahay kadib waxaad bilaabaysaa haddana inaad samayso grade-ka saddexaad oo isla wadadii hadda oo kale ayaad raacaysaa oo aniga boobsis ayaan ku marayaa inta soo hartay markaad samayso gradeska oo dhan oo aad soo gaarto kan ugu dambeeya oo ah grade-kii lagu dhici lahaa comma kadib uma baahnidid markaan inaad if kale dib u qorto oo kaliya double quotes ayaad furaysaa waxaad qoraysaa grade-ka lagu dhici lahaa ama grade-ka ugu dambeeya kadibna double quotes ayaad ku xiraysaa kadibna waxaad leedahay enter markaad tiraahdo saad u jeedo waxaa kuu soo baxaya arday kasta grade-ka uu wato